تيدي شخصي هاي ندوا ولا يقرب ونوجه لو كنا دولار شخصي أنا وبحنا إن شاء الله إلهي أنا وأنا هاي مركب حبين متضوعات هاي قارن ضد لقى قدره بريبان حبني كشيء ما ي مركب جارودي وقدوم حين كاها أيامنا توم هي قارن دولار نكى بروح أنا فيلين كلا كل ما نكى مالتي مركب يقصر بحبة بنو كرايسين شيء إنا سلامنا ما نشعليسين شيء وسلامنا ما نشعليسين شيء marka reerta bantaabo waxa garan kariya culayska sidaan way halka ma soo bilaabay hafayo ka markaan yareen biloona sidoo kale bay ahayd hadiyad shabina walaalayaal waa naga nasiib badantiin anigu ma aanan heli jirin habeen qura inta la isu yimaado miisaaniyadeeda in laga xil qaado qoladii diaspora ayaan tabantaabo waxaan leeyahay intan imaka waa wadankeena ka waran miisaaniyaduna de iyaga inagu baa wada lahayd iyagana waxa laga rabaa inta aynu ururnay caawa in leeg inay soo ururiyaan insha Allah ilaahay idinki waayo anigu halkan labada suldaan ba maalin baa awlada noo wada qoray waanu wada ciyaarno xafba ku wada kornay marka soo dhawaad bilaha maayirku runtii waxyaalo badan bay nagala qayb qaatay waxaan ka mid ah hawshii gubashada gubashada boordanka qayb libaax lagu ka qaatay wadada hadda socota ee wanaag ilaa iyo Carabaydho ilaa Diiqal qayb libaax lagu ka qaatay bakana ka qaadanaya insha Allah isagiyo wasiirka deegaanka wasiirka gaadiidkuba rabadaantii boordanka raashigii ku baxay oo dhan isaga qaatay soo dhawaayeen aad u wanaagsan bismillaahir rahmaanir rahiim madaxda qaranka aad iyo aad baan u salaamayaa gudoomiyaha xisbiga aad baan u salaamayaa gudoomiyaha ku-xigeenka xisbiga kulmiye aad baan u salaamayaa sida la sheegay gudoomiyaha ku-xigeenka xisbiga ka waan salaamayaa waxaan sidoo kale salaamayaa madaxdii hore qaranka ee xukuumaddii hore farxaan aadan haybay nagala joogo governorkii bangigu nagala joogo aad iyo aad baan wada salaamayaa salaadiinta ganacsatada mudanta ummadan halkan fadhida dhamaantood wada salaamaya dhalinyarada aan jecelahayna aad iyo aad baan u salaamaya hablaha iyaga qaaliga ah waan rajaynaa in hablaha Soomaaliyeed ugu sareeyaan iyagana waan salaamaya inta marka laga yimaado waa gunaanad iyo gabagabo hadal kana dheerayn maayo horta marka hore xukuumadda cusub waxaan ugu hambaleynayaa waxaanu khaatib billahi ka taagnaan jirnay 7 wasiir oo inta xafladii maadaam 7 hadla caawa haday noo soo koobeen caado wanaagsan laga dhigo waqtigu wax qaaliya xukuumaddu markay meel timaado ay 5 wasiir yihiin inuu mid quraato u hadlo ama xisbigooda gudoomiyahooda u hadlo u yiraahdo intaasay ku dhantay imagana waabay ku dhamaydo labadan dambe hadleextaa in la iska xidhaabay ahayd sidaa wax badan bay noogu hagaagaya marka aad iyo aad baan xukuumadda ugu hambaleynayaa inay wasiiradii joogay ay afka isa saareen oo ay yiraahdeen war soo kooba qof ku dhaatayna matalo waxaan sidoo kale ku hambaleynayaa wixii hadhayna inay qaateen oo aniguna aan ku jiro iyana waan ku hambaleynayaa waxaan doonayaa inaan kelmad iyo laba ka idhaahdo deegaankan deewaad ogtihiin oo codkiisa Hargeysa yaala haddana nidaamkeeda maamulku degmo kale oo madax banaan baa laga dhigay anu waxaan dadkii aaminsanaa degmooyinka codkooda Hargeysa ku soo xaroodaan in laga dhigo degmooyin caasimadda oo ka tirsan si markaa cashuurta weyn Hargeysa ay xaqooda uga helaan laakiin markii dambana waxa la yiri sidan baa maamulku inuu daadego ku wanaagsan waxaan doonayaa xisbiyadana ay tahay inay barnaamij ka yeeshaan deegaanada miyiga ah haddii sidan imaka wax loo sii wado daalkuna wuu badanayaa haynteennuna way yar tahay 60 iskuul baa imaka la sheegay haddii 60 iskuul aynu dhaahno 8 macallin iyo maamul ay u baahan yihiin haddaad intaa ku dhufato tiro intee leego macallimiina loo baahan yahay sidaa waxa ka wanaagsanaan lahayd deegaamadan yaryar oo la soo ururiyo iskuul casri ah oo boardina oo macallimiin takhasus fiican ay dhigayaan oo ku agyaala dugsiga farsamada gacantu in deegaan waliba uu yeesho ardayda halka lagu soo wada xareeyo ayd markuu ilmuhu ka baxo iskiil la baro magaalooyinka waa inuu shaqo tago kii kalena dugsiga sare uu dhamaysto oo dabeetana jaamacad saaq galo taa macnaheedu ma aha dadaalka tabantaaba oo day saa loo bedelo waa ku simidaan hore uga hadlay waa ku simaysaan oo shaqadii qaranka haysan haddii aad shaqada hadda wadaan joojisaan waxay ka dhigan tahay ilmo in caruurteena kamida ayaa waxbarasho waayaya ama hooya isku dhiman doonto caafimaadka ay u baahan tahay way doontaa waa ku simidii qarankiinu hadaatiin xubnaha tabantaaba inuu idin jecel yahay waxa ku garanaysaan budget baa samaysateen
habeen quraata dadka isugu yeedheen habeen quraataana boqolkiiba boqol idinka xil qaaday waxay taasi ka dhigan tahay inaynu nahay ummad wanaagsan oo ku wada dadaalaya abaal mariyo oo niyad jabin haddaan naga niyad jabtaan waxay noqonaysaa qaranku inuu dhutiyo iyadoo niyad jabka la idinka ilaalinayo ayuu qof waliba wuxuu bixin karayay ama culays ku aataamayaan ku aan uu bixinaya xukuumadii iyo madaxdina wixii soo haray ay qaadanaysaa waxaan walaalayaal doonayaa marka dadaalkaas in deegaamada uu ka soo dhan la laban laabo dawladeeda hoosana waxa ii sharaf shaqaalaheeda iyo arinkeeda iyo xaalkeeda waa ogaan jirteen inay maanta madax ka yara qaaraan ka huraya halka laba agaasima joogo labadii agaasima xogaag yaraa mushaarka waxay yiraahdeen wallahi dadkayga anaga mudan mushaarka qaataan baan garanayaa way hureen way si deeqsinimo leh bay u bixiyeen gudigana waxa ku jira baasha ku jira sharaf bay dawladda hoosoo anigana waa deegaankaygiyo wixii dawladda hoose looga baahday xukuumadooda ay qaado waan qaatay taydii kale shakhsiga ahayd baa hadhay cabdikariix mooga anigu halkan labada suldaanba maalin baa ulada noo wada qoray waanu wada ciyaarno xafba ku wada kornay marka taydii shakhsiga ahaydna waa laga rabo waan ogahay $2,000 oo shakhsiyana waa bixinaya insha Allah ilaahay baashaan soo dhiibaya leedidii ma isugu ba idin keenay hadii la hayda insha Allah ta'ala intaas waxaan ku gabagabaynayaa dalkan inaga ale waan dhisanaynaa cidna la sugi mayno xukuumaduna insha Allah ta'ala way dadaalaysaa waxay qaban karaysaa qabanaysaa ilaahayna waxaan ka baryaa in ilaahay guuleeyo oo ay guuleysatay markii guuleysatayna guuleysanayna dadkana waxaan baa la gudboon midnimo iyo walaalnimo iyo wadajir iyo wax wada qabsi insha Allah tabantaabana waxaan leeyahay waa dardaaran markaan gaalodiga joogana saasay ahayd anu waan ogahay markaad xubin mutadawaca tahay qaaraan dad lagaaga diro bari baan waxba ninkaa sheegi maaye markaan gaalodiga gudoomiye ka ahaa ayaa ninaan tuhmay qaaraan u doonay ninkii baa waxa aan filan kala kulmay ninkii maalintii markuu iga soo warbaxay aad baan u karaysan jiray inaan salaamana ma jeclaysan jiray inuu salaamana ma jeclaysan jiray marka reer tabantaabo waxaan garan karayaa culayskaas sidaan way halka ma ka soo bilaabay hafayo ka markaan yareen bilowna sidoo kale bay ahayd hadiyad shabina walaalayaal waa naga nasiib badantiin anagu ma aanan heli jirin habeen qura inta la isu yimaado miisaaniyadeeda in laga xil qaado qoladii diaspora ayaan tabantaabo waxaan leeyahay intan marka waa wadankeenu ka warwarnay miisaaniyaduna de iyagii inaguba waynu wada lahayn iyagana waxaa laga rabaa inta aynu ururnay caawa in leeg inay soo ururiyaan insha Allah ilaahay idinkiisa waayo marka ugu yar tahay inta wadadaynu ku darsanayna wadada ayaynu ku darsanayna marka reer qurba joogow macnaheedu ma aha miisaaniyadu waa la wada helay leedima baahna ma idinkana waxaa la idinka rabaa inaad guntiga dhiisha iskaga dhigtaan soo ururisaan qaadaankii awalba bixin jirteen oo aydaan isdhigin oo waliba ay tani idin dhiirigeliso aad idin dhiirigeliso intaasaan kaga baxaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh